mudane xildhibaan waa runta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka warqadan u qornay waxaan ka codsanay inaan wada fariisanno oo aan raacno jidkii hore loo soo sameeyay oo baarlamaankii sagaalaad sameeyay sidaad la socotidba markii ugu horeysa qodobka 136 wuxuu siinayaa awood baarlamaanka koowaad oo baarlamaankii sagaalaad ahaa inuu dib u eegista dastuurka uu ka shaqeeyo isla markaasna faqradda labaad waxay qoraysaa in afti dadweyne la geeyo dadweynaha laga hadlayo waa dadweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka koowaad oo dastuurka markaa fiirisidna midnimada waddanka ma kala go'i karto waxaa maqan gobollaha ka maqan waddanka waxaa kaloo meesha ku qoran qodobka 141 markaa fiirisid aftida waxaa lagu geynayaa sharci baarlamaanka uu sameeyay ayaa qeexay qaabka loo geenay dastuurka afti markaan u soo noqono markaa annagoo ballansan in madaxweynaha uu soo saaro dikreeto uu soo saaro sax inay tahay inayna sax ahayn waxaa ka jawaabaya maxkamadda dastuuriga iska leh aniga malihi because qodobka afraad ee dastuurka kumeel gaarka markaa fiirisid sharci kasta ama tilaabo maamul kasta faqradda labaad maamul kasta oo aan waafaqsanayn dastuurka waxaa burinaya maxkamadda dastuurka ayaa ku qoran waxaan ka soo qaadaynaa hay'adaha dastuuriga sida baarlamaanka ama xukuumadda haddii shuruuc ay soo saaraan markaa kadibna uusan waafaqsanayn dastuurka dadka la rabo waa maxkamaddii dastuuriga ah haddaan dib u noqonno qodobka 99aad sharcigii dastuurkii 1960ka maxkamadda sare oo tashkiil lagu sameeyey ayaa waxay geli jirtay maxkamadda dastuurka marka jawaab uu soo qoray madaxweyne dekreeto uu soo qoray institutionada gudaheed sax waay sax ma aha maxkamaddii dastuuriga laga rabaa aniga ma amasan okay waa su'aal fiican 8 February wixii 2016 dhacaya dhacay 2016 maxaa dhacay isla wixii 2016 dhacaya dhacay waa la socoteen 2016 baarlamaankii federaalka wuxuu ku ekaa bishii 8aad waa laga gudbay bishii 9aad 10aad 11aad 12aad baarlamaanka 27 December ayaa la doortay aan ka bilowno marka laga bilaabo aan ka bilowno 8aad oo waqti uu ka dhamaan lahaa 9aad 10aad 11 12 January February farmaajo la doortay waa 6 bilood oo madaxweyne Xasan Sheekh uu joogay wuxuu ku joogay sharci la'aan kuma joogin madaxweynaha wuxuu ku joogay sharci number 20 ama number 20 ayuu ku joogay oo asaga uu saxiixay isla sharcigii oo xilligaasi madaxweyne Xasan uu saxiixay ayaan annaga tixraacaynay iyo qodobkii 6aad oo la bedelay isla tii haddana madaxweynaha dikreeto ku soo saaray marka 2016kii sidii Xasan Sheekh uu ahaa hay'adaha la saaxiibkii ayuu ahaanaya farmaajo 2021 ilaa